marka bahalkii sunta inaga go'ay dhib ma laha marka waxaa la yiraahdaa sidee ayay lacagahan u kala horeeyaan waxa jirta adduunkan wax jira bahalkii hoggaan iyo hoggaami nin qof hoggaaminaya iyo qof la hoggaaminayo shay wax hoggaaminaya mid kale la hoggaaminayo hoggaamiye ila hoggaamiye ayaa jira hoggaamiyaashu qoladan haddaynu lacagahan u nimadno hoggaamiyaashu waa intaas oo qolada wax hoggaaminaysa leenka ku jirta hoggaamiyaashu waa kuwaas kuwa la hoggaaminayana waa kuwa sare ee xagga sare yaalla hadda arkaysaan kuwa xagga sare yaalla bahalkii waxaa la yiraahdaa waa kuwa sare kuwa wax hoggaaminayana waa kuwa taagan kuwa hoggaaminayana waa kuwa taagan deetana waxaa la yiraahdaa waa saas marka kuwa hoggaaminaya ninkii sheegno oo qolada taagan banari soo taagan qolada wax qolada la hoggaaminayana waa kuwaas qolada wax hoggaaminaysa waa kuwa la hoggaaminayana waa kuwa marka sidee ayay u hoggaaminayaan sidee u hoggaaminayaan iyo hoggaanta xiriir ka keeneen gadaal baynu ku arki doonaa laakiin iminka inay wax hoggaamiyaan ayaa muhiim u tahay deetana lacagta trillion-ka ayaa hoggaaminaysa waxay hoggaaminaysaa lacagta card bay hoggaaminaysaa oo ta ugu sareyso lacagta card bay hoggaaminaysaa euro card loo soo qaatay lacagta CHF bay hoggaaminaysaa ta euro AUD CHF loo soo qaatay waxay hoggaaminaysaa lacagta GBY ay hoggaaminaysaa lacagta AUD NCD bay hoggaaminaysaa lacagta hoggaaminaysaa USD haddaba qoladan waa kuwii wax hoggaaminaysay bay niri soo ah sax soo fahmay qoladaasina waa qoladii la hoggaaminayay ma garateen marka lacagta tan haddii euro soo hormarto oo lacagtaasi horeyso iyada hoggaaminaysa waxay hoggaaminaysaa lacagta Australian-ka ahayd waxay ku xigtay hoggaaminaysaa lacagta Canadian-ka waxay hoggaaminaysaa lacagta CHF waxay hoggaaminaysaa lacagta GBP waxay hoggaaminaysaa lacagta GBY waxay hoggaaminaysaa lacagta NCD waxay hoggaaminaysaa lacagta USD intaas hoggaaminaysaa deetana maxaa la yiraahdaa lacagtaasi qaybta taagan ee firstiga hoggaamiyaashii Australian-kii kaarkii CHF-kii waa hoggaamiyaashii haddaba lacagtan hoggaaminaysa iyo tan la hoggaaminayo say ku dhacday muhiimadda ayaa ta ah laakiin in aad hoggaamisaa oo waxbaa lagu kasbanaya hoggaankani iskama iman ee sabab buu ku imid inay lacagta tan ay hoggaamiso ogtiin cashirkiina labaad ba sharaxaya marka kan haddaad fahmi weydo ka kale aad ku fahmaysaa ka kale muxuu leeyahay marka ka kale wuxuu leeyahay imoo kale xagga sare haddaad eeg xagga sare laba kartoon ba saas ku garbiya labada kartoon waxay sharaxayaan amba shaybka sheegaysaa waxay midna mid kama weyna kan buu leeyahay kaasan kan kale uu leeyahay midna mid kama weyna waa stable waa marka la yiraahdo suuq uu qasay yahay waa choppy baa la yiraahdaa amba rating baa la yiraahdaa suuq waa markuu qasay yahay aan la gelin lacag inaga muhiimaddan waxay tahay kolba lacagta weyn ayaynu raacinay awoodda leh wax hoggaaminaysa ayaynu raacinaa iyago kale bahalkii bogoska labada bogos kaasina uu yahay kaasina uu yahay waad aragtaan ka hor hadduu yahay suuqaas waa buy ima ka hor hadduu yar yahay oo ka dambe uu yahay suuqaas waa sell soo fahmay qaacidadu markaa waxay sheegaysaa ka hor hadduu yahay suuqaas waa buy ka dambe hadduu yahay suuqaas waa sell haddaba hoggaanka lagu sheegaya maaha wax weyn maaha waxa weeyaan lacagta tan ayaa horeysa lacagta imika bogoskaas horeeya bogoskaas wuxuu ka weeyahay bogoskan kale ma ka weeyahay marka isaga miisaanka ugu badnayd qaatay lacagteeda maxay raacday lacagtii weyneed bay raacday oo kor baa loo dalacay oo laga awood weynay marka hoggaanka waxa haya ma bogoska buluug ah kala hoggaaminayana waa bogoska akhtarka waayo waa laga awood weynaaday oo waa laga awood batay marka haddii qaacidada jirta waxa weeyaan waxa jirta qaacidada hadday tahay inka bogoska hore hadduu weyn yahay oo ka dambana yar yahay suuqaasi waa buy soo fahma bogoska hore hadduu yar yahay oo ka dambana weyn yahay lacagtaasi amba suuqaasi waa sell iyadoo lacag aynu tusaale soo qaadano
lacag iyadoo lacag aynu tusaale soo qaadanay bahalkii lacagtii waxaynu soo qaadanay maxaa la yidhahdaa xagga siraxa ku qoran strong USD ba ku qoran soo ma aragtaan aynu iska masaxno xagga sare waxa ku qoran strong USD iminka kale USD ayaa wax hogaaminaysa hogaanka say ku heshay waxay hogaanka ku heshay markan iyada ka weyn waxay ka weyn tahay lacagta Canadian-kii aniga idin lahaa bogaska hore hadduu yahay lacagtaas waa buy markanna waxay hogaaminaysaa lacagtii eurodii bay hogaaminaysaa oo bogaska dambe weyn lacagtaasina waa sel bay marna ku hogaaminaysaa marna buy bay ku hogaaminaysaa suuqa jihadiisa waxa uu maamula lacagta awoodda ku leh ayaa lacagta kala hogaamisaa marka inaad awood ku lahaato tusaalaha bogaskaas kugu filan bogaska hore hadduu ka hore weyn yahay oo lacagta labada ta hore iminka wax israaco kale USD card lacagtii Mareykanka iyo lacagtii Canadian-ka israacday deetana maxaa la yidhahdaa markay israacday saas ku raacday USD iyo lacagtii maxaa la yidhahdaa USD iyo lacagtii Canadian markay sidaas ku raaceen ayaa bogaska hore weyn ma ogtahay marka bogaska hore waxaa leh lacagtii USD baa leh lacagta dambe waxa weyn waa Canadian bogaska akhtarka waxaa leh lacagta Canadian-ka leh marka waxay cadeynaysaa bogaska hore haddii lacagta hore ay tahay oo bogaska hore weyn yahay amba lacagta hore ay awood weyn tahay ta dambe iyada hogaaminaysa ta dambe la hogaaminaya ta hore wax hogaaminaysa ima hadduu bogaska hore yar yahay sida euradaas oo kale oo lacagta USD yar ka weyn tahay ka hore suuqaasi waa sell qaacidada saxda waxay tahay suuqa kan lagaga shaqeysto si aad u fahanto suuqaasi ma sell baa mise waa buy keebaa ku awood leh muhiimadu kaliya ta bogaskaas kaga xidhay oo labada lacagood ee aynu soo sheegnay ee israaca sida USD iyo card oo israacay haddii lacagta hore aad aragto suuqaas waa inuu kor u socdo oo buy yahay waxay cadeynaysaa inay lacagta hore awood weyn tahay oo suuqa maanta wax la iska iibinayo aan waxba la iibsanayn ima haddii lacagta sida eurada iyo USD-da bogaska dambe way yahay oo bogaska dambe suuqaasi uu sal yahay suuq hoos u socda aad aragto lacagta maanta waxba la iibsanaya ee waa sal oo lacagta dambe awood ay ka dhigantay inay USD soo horeyso oo awoodda ay yeelato haba soo horeysay awoodda waxa siiyey iyadaa waxay ka awood weynaatay lacagta US kaarkaasi ka awood weynaatay oo lacagta Canadian-kii marka intaas weyn lacagaha maxaa u soo kala horeynayaan maxay u kala dambeynayaan waxay u kala dambeynayaan kala horeynayaan siday u kala awood weyihiin lacagta USD-da iyada awood weyn iminka iyada awoodda leh awoodda marna iyadaas buy ah marna iyadaa dambeyso sell ah marka adiga kuguma xidhna keebaa awood leh ee waxa kugu xidhan suuqa iyaa hogaaminaya oo diyaad maanta raacdaa suuqa sidii hore hadduu yahay oo stable uu yahay suuqaasi stable uu yahay sida kan hore oo kale stable uu yahay labada boqos hore uu isleeyahay suuqaas midna ma weynaa marka inagu waxaanu raacaynaa markaste lacagta awood leh ee jihada suuqa haysa jihada lacagtu hadday awood yeelato jihada suuqa iyada maamulaysa ayaa leeyahay xaggaas ka dhigan tahay marka jihada suuqa waxa maamulaysa lacagta awoodda ku leh marka boqosyadana waxay cadeynayaan kaliyaata lacagtayba awood leh oo jihada suuqa maanta haysa muhiimaduna waa inaa idin soo sheego ta hore strong USD way ku adkayseen boqoska hore waa USD oo waxay ka awood weynaatay lacagta Canadian-kii suuqaasi waa buy ka dambe lacagta eurada ayaa waxay ka awood yaraatay lacagtii USD-da awood weynaatay marka lacagta eurada waa la maamulaya suuqaasina waa sell haddii u nimaadno kan kale wuxuu sheegayaa bahalkii inay USD maanta weyn laga awoodiyo haddaba iyaa ka awoodiyen waxa ka awood weynaatay lacagtii AUD lacagtii Australian-ka ka awood weynaatay suuqaas markuu ka awood weynaatay aragto suuqaas inuu kor u socdo jihadiisa kor ay tahay sidaa u socdo kor u socdo kor ugu socdo suuqaas oo buy ima haddii laga awood weynaado soo hormarto
oo laga awood weynaado way ka awood weynaato suuqa kor socda saasaha abaarta isagoo soo dhaaracay hoos u soo socda suuqaasi waa sal bay ka dhigantay waa sal suuqaasi wuxuu aadayaa hoos oo waxba la iibsanaya marka muhiimadda waxay tahay labada cagood keeba awood adiga intaas ka tirsan keeba awood waxa ku tusaya awoodda leh labada lacagood wala socda sida AUD iyo USD waxa ku tusaya suuqa ayaa ku tusaya suuqa hadduu kor u socdo oo kor u socdo ana idin tusi doona si live wuxuu ahaa labada suuq ka kor u socda ayaa awoodda leh ka kor u socda ayaa awoodda leh ka hoos u socdaana waa ka dambe laba lacagood way soo raacay badanaa laba lacagood way soo raacay tusaale waxa soo qaaday soo raacay AUD iyo USD lacagta Australian-ka iyo lacagta dollarka waxa aragtay suuqa kor u socda bogoskana hore wuxuu sheegay hadii bogoska hore awood weyn yahay ay lacagta hore awood weyn tahay oo lacagta hore ay Australian USD Australian soo horeeyo oo USD dambayso Australian ayaa suuqa awood ku leh waayo suuqa waa kor u socda weeyaan ima USD hadii awood weyn tahay suuqaasi USD awood ku leh oo iyada hogaaminayso oo bogoskii dambe ayaa weyn oo hore yar suuqaasina waa sell weyn sida oo soo sheegnay moogtii muhiimadda ku jirta intaasa lacag hoose u kala horeynaya maxaa soo kala horeysinaya awoodda ay ku xirantay awoodda suuqa yaa suuqan hogaaminaya awoodda leh muhiimadda ayaa inta ah insha Allah inaad inta fahanteen ayay la tahay gunaanadkii gabagabadeennii xiisada caawa ah ayaa waxa aynu uga talagalnay joogteen inaad joogtayso markaad shay joogtayso eed bugaageeda soo qaadateed ku qorqorato eed hadhow ku celceliso waxa ka dhalanaya meesha iyada ah wuxuu ahaa faham qoto dheer shay aad qoratay deetana saasa u wada eegto maalin kasta wada eegto markasta ku celisay daqiiqad saacad baad u eegtay deetana wixii markaad ku celcelisay eed fahanto waxa kaaga soo baxay xagga faham qoto dheer marka sorry xiisadeeni xalay waxa ku dhacday way ila tahay xalay dhahdaa xagga zoomta update bay ahayd kow laba internetka ka ciladaysnaa bay ila tahay saddex computerka sidii aan maalintii soo galaysay jimco afartii aan u shiday aroonnimo intii aan la adimin salaadii subax yaan shiday wallahi sidii shida u shidan bad idinkuna soo gasheen marka insha Allah ka warwari mayno haddii macalaysiintu xumaatay hadda kadib anaa fiidiyoda sida idinku soo duubaya yaan laga warwarinayo idinka waxa muhiimadiina tahay inaad idinku wax fahantaan waxaad fahmi weydaan anaa idin diyaar ahnayo waxa ka warwarinaya isoo dira saaxiib si live media xagga noogu celi xagga sida dhahan laakiin haddaan aamustaan idinka ayaa wax fahmi waaye ay ka dhigan tahay anuu cashirka saasan idinka dhigayaa fiidiyoda waan idin soo gelaya aan xisadaa ka duubo waxa aad xiisada maalinta aad ka fahmoodo aad habeenka ka fahmoodo groupkood ku jirta annagu kugula jiraa isoo dir walaa xaggaasaan fahmi waaye xaggaa iisoo sheegay waan kaga soo jawaabayaa sida ugu dhaqsaha badan insha Allah xiisadeeni ma aawa ayaan xalay inaga baaqatay bas oo gacaysay aniga idin soo duubay waa suuqii hore naga go'day tii labaad baa soo duubay marka waxaan idin rajeynayaa maalin wacan inaad ka faa'iidaysateen ma rajeynayaa insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته